munaasabadaasi waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar, wasiirka beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya سعيد حسين عيد وزيرka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yariso, madaxda barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay magacooda loo soo gaabiyo WFP iyo guddiga beeraleyda Soomaaliyeed. munaasabadda ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay raashin galley ah oo WFP ay ka iibsatay beeraleyda Soomaaliyeed, kaasoo cadadkiisu gaarayo 2500 oo metrik tan. waxaana wasiirka wasaaradda beeraha iyo wakiilka WFP ay halkaasi ku kala saxiixdeen heshiis ku saabsanaa in hay-addu ay raashinka ka iibsato beeraleyda Soomaaliyeed halka markii hore ay ka soo iibsan jirtay dalka dibaddiisa. wasiirka beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Siciid Xuseen Ciid oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in lagu guuleystay sidii hay-adda WFP ay u iibsan lahayd dalagyada ka soo go'a beeraha dalkeena. laba munaasabadood bay isugu jirtaa. mid waxaa weeye raashinkan halkan yaalo oo galleyda ah oo WFP ay ka iibsanayso ama ka iibsatayba iskaashatooyinka beeraleyda Soomaaliyeed. waa raashin 2500 oo metrik tan oo galley ah oo standardka gobolka bariga Afrika gaarsiisan. waa markii ugu horeysay raashin aan maray inta tira leeyahay hal mar inay WFP ka iibsato. madaxda hay'adda WFP ayaa iyaguna halkaasi ka qiray in baaritaan kadib ay xaqiiqsadeen in tayada raashinka dalkeena Soomaaliya uu yahay kan ugu wanaagsan dalagyada ka soo go'a wadamada Geeska Afrika. waxayna hoosta ka xariiqeen in hay'adda WFP ay iibsan doonto raashinka ka soo go'a beeraha dalkeena Soomaaliya. ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay kala saxiixdeen wasaaradda beeraha iyo hay'adda WFP isagoo tilmaamay in tani ay dhiirigelinayso siyaasadda dowladda ee ku wajahan la dagaalanka faqriga. waa tallaabo wanaagsan oo aynu maanta hore u qaadnay, waxaana tan suurtageliyey fikirka iyo aragtida fog iyo siyaasadda madaxweynaheenu inagu hagayo ee ah waa inaynu dhaqaale ahaan dib u soo kabanaa, xoog saarnaa, aynuna suurtagelinaa dalagyada kala duwan ee dalkeena ka soo baxa ee beera iyo xoolo iyo kalluun iyo dhinac walba leh in laga shaqeeyo, inagoo isku filnaanaa, isku tashanaa. laba, amniga xoojinaa, waayo haddii beerihii dhaqdhaqaaq ka yimaado dhaqaalihii kobco, amnigiina wuu xoogaysanaya. heshiiskan ayaa qayb ka ah qorshaha ay xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku horumarinayso dhaqaalaha dalka isla markaana lagu yareynayo dhinaca kale saboolnimada. Mawlid Maxamed Sabriye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.